والله إلهي عافني موين لكن كوا بدن بالو فير لي عافمات كيga إنسان كويلا waa 25 jir 3 jeer guursatay iyada oo qabta xanuuno aysan u qarin kuwii guursaday balse dayacay markii ay la guri galeen kadib ladan maxamuud axmed ilinta ayaa ka qubanaysa mana faraxsana waxa ay ku nooshahay magaalada Qardho oo ka tirsan dhulka uu ka taliyo maamulka Puntland hooyadeed way geeriyootay aabaheedna waa da qudhiisu waxa uu ku xanuunsanayaa Hargeysa oo Soomaaliland xarun u ah kaligeed ayuu awlaad ka dhalay ladan iyadoo aan qangaarin ayaa si qasab ah nin loogu guuriyay maadaama aysan gaarin lahaynna garaadkii guri dhaqidda iyo in wax laga dayo toona isfaham waagii halkaas ka dhashay ayaa bilow u noqday nolol mugdi ah oo xitaa gaarsiisay in jirkeeda dhaawacyo loo geysto waa sida ay ii sheegtay xanuunada ay qabto oo sababay in 3 jeer la soo furo oo ninkii guursadana uu ka cararo iyo daryeelka hadda ay uga baahan tahay Soomaalida adigu aad ku jirto ayay inooga sheekaynaysaa ka raali ahaada haddii ilinta ka qubanaysa ee bedesho dareenkiina Soomaaliyeed oo in badan waligeed aan hor fariisan kaamiro laakiin maanta aadanta iyo duruufta jirta awgood ay qabsatay in soo fariisato in badan baahiyaheeda qarsanaysay qalbigeeda ku qarsanaysay qofku waxa muhiim ah inuu jirka ka qurux badnaado inuu qalbiga ka qurux badnaado laakiin qof walba wuxuu dareemi karaa baahida jirta markuu qof soo hor fariisto kaamiro aniga waxaan ahay gabadh sanadka 5 aniga waxa kula jirta hooyada Allah iga qaaday aabahay isaga xanuunsan iyo ku doonaya Somalilandtaas kaliya awlaad iga dhalay family aniga maanta jooga dunida ma jiro ama wax taraya markaan xanuunsan tahay ama muweysantahay ama dhibantahay waxa kaliya kula wadaagi dhibkaaga waa qofka damqanaya ama jirkaaga runtii in qalbiga jirka laga qurux badnaado wax wanaagsan in qalbiga laga qurux badan yahay aniga maanta waxa la noolaa sokor waxa la noolaa dhiikar waxa la noolaa neerfe waxaan qofta kaliya maalinta 3 dhacda ilaa ilaahay intuu qoray maahan alxamdulillah dunida waa ku samaysanahay imtixaanka ilaahay uu keenay ilaahay caafimaad ima waayo wallahi ilaahay caafimaad ima waayo laakiin kuwa badan baa lagu fiiriyay caafimaadkayga إنسان كويلا waxaan iga codsanaya 3 kuul baan soo maray noloshayda mid walba waxa uu bandhigay xaalad aan ku jiro mid walba uu soo dhaweeyay intuu ay guursan way ugu yiraahday laakiin maalinta noloshayda gudaha u galay waxay igu noqotay noloshayda caqabad markaan sugay farxad markaan sugay garab istaag 12 sano noloshayda kamid maalinta 12 sano ilaa ay maanta noloshayda farxad ma arag تقرر مدح يكو ياله waxa ay geystay oo jirtay oo xarnada maanta aan dhacay geystay wada family kamid alxamdulillah ilaahay baa ii qoray ilaahay wuxuu ii qoray inay ani karto wuxuu ilaahay ii qoray inay ma siin karto laakiin galabta halka waxa u soo fadhiista aniga og inay dhahay gabadha yarta way in la dhahay wajiga saas way waji qurux badan ma taro wallahi musuhbatana inta iga daaysa maanta wayna qalbiga ka daaysa waxa laga yaabaa kuwa ila mid aniga inay habeenkii farxad ku socda aniguna ilmo ku socdo way maanta kala galab adduun weyn boonti wan aankinin ku gato maasto sokor bala nool ikar bala nool neerfal ee kaaga saas u daadanaya mid soo dhacaya habad baa gacanta ay ka dhacday halka habad baa gacanta halkaas laga saar jirkayga saas u noqdo wada barbaraha mamada bararkaas way jirkayga u noqdo alxamdulillah oo ku qanacsana ilaahay wuxuu siiyay igu madacnani بين آدم يعني وخبري ما ترك لكن ما أنت مش شقيس الكرخة وأنكو شقيس ما يستو قفت ظروف يسمى بها حول ما يستو مليه قفنا قف حنوسن مرة قف ولا أودل بين آدم أودل إذا كنا وهو ربع قف عاف مع القمر إلهي رب سبحانه وتعالى بين آدم كدوشو كسمة لكن درهم في قلبي ولا هيك ولا بدوي ما أنت واحد ولا شيء صوم عليك إلهي لا نصوم عنا جواب اللي مسلم بعنا إلهي باين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إلهي باير فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ما هم ولا كم كل هذا الشيء أيوة كسوم في الصلاة دي صدق الله لا بخلا ولا كعب ما أنتم حنا ولا لي وكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهاي نيجا عصنية إلهي درتي بوجه الله قبيل نيجا عصنية وصل معنا نمو إلهي درتي وهاي نيجا عصنية ما أنت إنا قرب ولا نمو يبفير سام ما دام أنتم ممكن ولا نبشرون وغير كبرنا إن إلهي رب سبحانه والباوث تعصنوا لي
قف والبدونية وكنت جاية بوحدة وصح بوحدة ما أنت أولاد ما هيستو أنكو إنك وشو هنون كاسا قف والبيجر رابي ما أنت جواري رشيد لا تسكت لكن ما أنت قف والبيجر هنقول تاجي يقولوا هذا مركو أركان لكن قف درين كان قلبي جيجا متشرو وحكوتشرا مركا إن شاء الله قف والبإلهي الأقولك قف والبقلبي جيس إلهي وحكوتشرا ورمي أنا مركا وحاربينا ولاتين بس ولاتين ما دمروا لا يبقى يبسطها ما دام أنا أخف dhiikar iyo sunkar la nool stress aan u baahnay haddana stresska aan noolahay waxaan iga rabaa garab waxaan iga rabaa walaalnimo waxaan iga rabaa islaamnimo inaad ilaahay darto wax iigu qabataan biwajhina waayo maanta waxa ay qabataan u baahan idinkuna birka maalin baahidaysanayinka u baahan qof walba maanta wuxuu baxsado unbaa meel u yaala waayo dunidayda ayaamo iska kooban oo ayaama macduudaad qofna uusan adduunkan uusan ku waarin haddii qof ku waarin nabi maxamed baa lagu innaka mayitun wa innahum mayitun dareen marka waxaa bereenta maanta gabar walaashaaya oo ilmeynaysa oo adduunka ku kula nool oo magaca Soomaalinimo iyo Islaamnimo ku kula wadata ya maanta waa garanaya dad badan baa waxay dhaayaan nabi maxamed facebook waxa soo bartay social media laakiin dhibaatada ay haysato ma dareemi karaan ani uma dareemi karaan waxaa dakhal wajigay ku yaala waa jidnin dhabiito wajigay igu sii igu geystay maanta awoodii ma sheegan karo wayga awood badan marka bilasxaan ilaahay dartii waxaan dhakhtar ku tago iibgeey dhakhtar meel iibgeey intaas badad islaama oo mucaawinaada oo muxsiniinaad tiin dhaxdirka islaamkaas xoolo baxa ani intaas ayniga cusbanay bifadl qofna qof qalbigiisa kama turjumi karo markaa dhaawacantaad oo markaas murugaysantahay dunida dhan baa markaad murugaysantahay waa kuwa kaliya laakiin marka aad qoslayso qof walba wuu kula qoslaya wuuna kula dhool cadaynaya laakiin ma jiro xaqiiqada marka ooyni qofkun ooynaya maanta ma soomo ما أودي كرسول سكرتين ويدا عسى وحاس كذا بحي ما أود كمان على نور ما هقف أهل مقولة نور إلى هدرتي ولا نور كلاس بيا ما أنت ما أودي كر مركب ولا عليه بفضل إلى هدرتي وهكذا إني مرة وما أنت والله هو فلان بعد رجل هلا عاوي أنا ورياش وبيجري تيفي أنا نبكي قرصني لكن هو قرصني وهي حقيقة مركب إلى هدرتي بوجه الله وهي وقبته بوجه الله إذنكو أنا أمر إيقر هادنا قبل إيقر هادنا سومالي النبي إلهي درتي بانتو حين إيقر إن شاء الله جزاك الله ladan maxamuud axmed oo ilintu ka qubanayso waxa ay bulshada Soomaaliyeed kaga baahan tahay caawin degdeg ah si nolosheeda ay farxad u hesho maadaama ay noo sheegtay in sidii ay u qaan gaartay aysan helin wax farxad ah